بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa TV-ga caalamiga Universal barnaamijkii faqadaada ciyaaraha waxaana ku suganahay magaalada Manchester oo ku taala waqooyiga wadanka Ingiriiska waxa caawa ka jira xaflad aad u weyn oo lagu taageerayo horumarinta isboortiga Soomaaliyeed oo ay soo abaabuleen jaaliyada isboortiga ee Greater Manchester intaanu barnaamijka furin waxaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Maxamed Diiriye si uu aayadaha Quraanka Kariimka halkan inoogu furo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي سبحانه وتعالى محدله إنه نبينا كصلينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد walaaladeen dhammaanteed cinda martidii bannaanka inooga timid iyo reer Manchester ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala ku mahadinayna waxaanu ku soo dhaweynaynaa maaragtay walaalada nooga imaaday meelo kala duwan magaalada Manchester ahlan bikum baan leeyahay ahlan wa sahlan ahlan bil wafdiga noo imaaday waxaan ku soo dhaweynaynaa kelmadda ahlan bikum ghayra khazaya wala nadama idinkoo maaragtay mudan oo maaragtay ehelkiina iyo walaaladiina iyo asxaabtiina oo imaaday ayaan ku soo dhaweynaynaa taasi waa kelmadda ku saabsan soo dhaweynta martideena kelmadda kale inaga wada dhaxaysana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidii noo dardaarmay ani taqullah ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بإله سبحانه وتعالى إذن كيدتك إذن كهريبة وحا الله دردارمي إلهي الله كعبسك مارتي marka dhamaanteed waxaynu walaal isu dardaarmeena
alla ka cabsiga ilaahay aayadka aan akhrinay qayb ka mid a laba aayadood oo laba sadar oo ku jiray ayuun baan rabaa inaan maaragtay aan iyar af Soomaali noogu macneeyo waa aayadda ahayd walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum dadku inay iscafiyaan oo is saamaxaan ilmeedan jecelayn ba ilaahay subhanahu wa ta'ala saa sameeya aayaddu qissa ilaahay ku soo socotay oo qissatul ifk la yiraahdo Aisha been niman munaafiqiina ay ka sheegeen ayaa marka Abu Bakar dadkii hadalka qaaday waxa kamid ahaa nin Abu Bakar wax tari jiray markaasuu marka Abu Bakar ka xanaaqay ninkii anigu aan biilay baan hadalkan inanteeda ka sheegay miya maalin damba waxba ku sii maayo markaas ilaahay aayadda soo dejiyay miyaanad jecelayn in la idin dambi dhaafo markaasuu Abu Bakar wuxuu yiri wallahi waan jecelay in ilaahay subhanahu wa ta'ala ii dambi dhaafo maca dalika Abu Bakar nabiga u sheegay in ilaahay u dambi dhaafo jannada uu galinayo markaasuu Abu Bakar wuxuu yiri wallahi waligay ka gooy maayo ninka biilkiisa waa wadaya marka walaalayaal kelmadeedu waxay ku saabsan tahay markaynu nolosha wada dhisayno markaynu wax wada qabsanayno ama sport aynu ciyaarno ama aynu siyaasad dhisano ama guri aynu dhisano ama baacmishan wasano inaynu ku dhaqanno kelmadda la iscafinta iyo isaamixida ilaahay baa subhanahu wa ta'ala yiri iscafiya oo isaamaxa miyaydan jeclayn ilaahay subhanahu wa ta'ala idin dambi dhaafo marka qofka ay halkaas ku jira marka qof kugu gafo ama wax aan ku qaban kugu sameeyo inaad markaba xanaaqdid ama aad qori qaadatay ama dib qaadatay waxa soo dhimo waxay nolosha ay nagaga xumaatay marka aayadaha ilaabina walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfir lahum waliba hatta adeen luqada u yar noqono ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu isticmaalay kelmadda la ala wa alati tanbih bi culimada naxwaha ku fiican waxay waa marka qofku markuu soo joogo la soo baraarujinayo ama la soo jeedinayo ayaa la hooy hada meeladi maqlayni qof meel ka fog ka jiro loo yeereeyo kale ina iscaafino aynu isaamaxno waa waxyaabaha jannada lagu galo waana waxyaabaha nolosha ku fiicnaato waana nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo ahaa nabigu kaleey salaatu wasalaam waligi qof xumaan ku sameeyay uma jawaabin hadaa nin baa reer cibaadiye nabiga ku soo jiiday go oo hamkaasi go'ay xagtay uu leeyahay nasiman maalillaah maalka ilaahay wax naga siyaad haysatid markaasuu nabigu qosla kaleey salaatu wasalaam kaana layinan sahlan yaani waxa nabigu wax dabacsan oo naxariis badan quraankaana ku taala haduu nabigu qalafsanaan lahaa ama uu adadkaan lahaa way ka kala carar laan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxyaabaas waa waxyaabaha wanaajiye nolosha inaynu isu dabacsanaano inaynu iscafino inaan xumaantii la sii wadin waana mahmahday waa yeeladu ku mahmahay jireen xumaanta xasuusta walaal ma xasuusta leh haduu qofku xumaantii maalintu ay ku taagnaato walaal ma xiriiriyo marka walaalayaal arinta noocaas ayaan dhamaantii ilaahay ku wadiina ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa tawfiiq wa sadaad ilaahay subhanahu wa ta'ala noo wafajiyo mar labaad waxaan leeyahay walaalada meel kale nooga imaaday ahlan bikum soo dhawaada magaalada Manchester ehelkiina iyo qaraabadiina iyo asxaabtiina ama sport ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ama siyaasiyiin ahaadaan ahlan bikum gacmo furan baan ku soo dhaweynaa barakallahu fiikum daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Maxamed Diiri oo kamid ah culimada dhalinyarada sportiga ee magaalada Manchester iminka barnaamijka ayaan bilaabi doonaa waxa laga hadlayaa horumarinta sportiga saala socotaan isbedel aad weyn ayaa ka dhacay wadanka Soomaaliya waxaan lagu taageerayaa wiilashii qaranka kubadda kolayga ee ka qayb galay ciyaarihii ka dhacay Zone 5ka wadanka Tanzania oo ku aragtan sawirada halkan yaala waxa kale lagu taageerayaa doorashadii ka dhacday wadanka Soomaaliya lagu doortay guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed iminka waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Ahmed Daani si uu barnaamijkii halka inooga sii أحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمة سنتا سولو أنا قاعد أقول لك مجا جاليد قرد مانشستر أدين نقول لك دانييرو سبورتس كا أما دانييرو كلابا وحان إذا لنا مرة بعد إمرس دحد مرت الشرف تقالي كسر قيب كشحفلة دن كعم فرن كسر دوادا نقول مرة والبتح قلنا إنه هجانك كجرا مقالة دن سبورتس كا وسميسن قدك مرجع ومدحويها شرف زينو ونقول قال هذا إن مرتقل إنه ضد كنا إيجنا وحان لنا ومسنتين هدام برنامج كان أسيو جذا قلنا waxaan jeclaan lahayn inaan meeshan horta aan isku imaanay ee horumarinta sportiga inaan wada fahanno oo mowduucaan aan ka hadlin maadaama ay tahay maalin taariikhi ah oo kubadda kolayga Soomaaliyeed ay heer fiican mareedo guddiga Olimbikadana la doortay aan halkan uga tahniyadeeno magaaladan ay tahay magaalo ku aftirsata sportiga waxaan idin leenahay ku soo dhawaada ugu horantii barnaamijkan waxa furitaankiisa iska leh gudoomiyaha guddiga marjaca Sharif Zeyno oo aan jecelnahay inuu noo furo ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وهرنتي أن سود ويو بهوينت سبورتي نوغتي مدي لندن إيميلها كله وحن لي سود وهذا كسود وهذا مانشستر هو مقالة كما قعامه سيد نوشيك أحمد سبورتي أما سبورتي كو وحان كله الربا إن مهد عليو
guddiga ama ururka isboortiga Manchester oo caawa qabteen xafladan caawa halka lagu qabsaday oo annagana aan adnahay guddiga marjaca aan ka soo qayb galnay anoo ku hadlayo magaca guddiga marjaca Manchester oo xubnaheeda badankooda halka ay la fadhiyaan saad aragtaan Maxamed Ibrahim dhinaciga fadhiya iyo Abuukar Cali Shitaawo xaggana Cabdiqaadir Mangiste Cabdirazaq Mangiste waxaad arkaysaan xagga Cabdiqaadir Ibrahim Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Abgoy iyo odayga maxaa yiraahdaan Cumar Axmed Jilib guddigaas ayaan u madax u ahay caawa aan magacoodan ku hadlayo guddiga waxay yihiin iyo waa ogtiin baa umaleena ma u baahnideen aan sheegno maanta guddiga London ka yimideen hadda meel hor halkaan ula fadhiistay waxaan u sheegay ujeedooyinka guddiga loo aasaasay ujeedooyinka guddigan waa la ogyahay waa nabad yani inaan maslax aan dhalino ama loo noqdo wixii dhibaato khilaaf ka dhaco kooxaha sida la socotaan waxaan sameynay hadda kor guddiga marjac barnaamij aan u dejinay kooxaha isboortiga magaalada Manchester ka dhisan oo gaaraya ilaa 11 koox barnaamijkooda iyo habkii isu dooran lahaayeen iyo sida awoodi lahaayeen iyo iyo barnaamijka mustaqbalka kaas ugu talgelinaa waad ogtahay intaas koox magaalada haddii joogaan waxaa imaan kara iska qabsi si arrintaas u dhacay iska qabsi ayaa guddigan loo aasaasay haddaba anoo ku hadlayo magaca guddiga waxaan dhahayaa guddiga isboortiga Manchester xoog yani horumar sameeya xiriir fiican la yeesha guddiga isboortiga hadda nooga yimideen muxuu ahaa London waxaan ku dadaalnaa waxaweye horumarinta isboortiga Manchester iyo UK ga dhammayraa kaasaan ku dadaalna guud ahaan isboortiga waa ogtahay kale maahan footballka waa koleyga maxaan ku sheegaa dabaasha iyo haddii boxka haddii jiro iyo maxaa yiraan iyo geedkan cayaari jiro maxaa big ball iyo waxaas dhan baa isku yiraa isboortiga ayaan rajaynayaa in horumar ku sameyno munaasabad caawa waxay ku beegan tahay gabadhii bishii mawlidka nabi oo maanta ku xirnay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa mawlidka nabi maanta ayaa umaleynaa bishii ugu dambeysay oo maanta ku qabanay xuskiisii guddigiina waa kasoo qayb gashayna umaleyna haddana caawa halkan waxaan u nimiday in xafladan kusoo dhaweyno guddigan isboortiga oo nooga yimideen London kusoo dhawaada waxaan kala mahad celinaya guddiga abaabula shirkan xafladan abaabuli oo leeyahay waa mahadsantihiin ana martiqaadir iyo ilaahay guul igu siiyo sidii barnaamijka dambe si ugu diin waa mahadsantihiin aan ku gada jirno waa barnaamij sports iyadoo ay marti badan la joogto halyeeyo badan ee sports ku aftirsada sida xuska iyo macallin BK iyo dad la mid ah ay joogan oo saacaadi hore ah ururka horumarinta sportsiga oo Axmed Nuur gudoomiye u yahay SSUK oo Cabdiraxiin gudoomiye u yahay Adar Hussein Deeri oo ah oday sports asna waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Manchester idinkoo happy ah run ahaantii barnaamijkan wadno ku sii jirno Manchester sida aad la socotaa waxaa ka jira kooxo badan oo aad uga qayb qaata sportsiga kooxahaas oo magacooda maanta ayagoo isku duuban uu ku hadli doono Xasan Jabuuti oo aad wada taqaanaan oo ah gudoomiyaha ururka Woodward run ahaantiina ah kalaabka ugu horeeya maanta aan dhihi karno Yurub ka dhisan ee ilmaha waxaan leenahay Xasan ku soo dhawow Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhamaan guddiga nooga timid magaalada London magaalooyin kale ku soo magaalada wadankan UK ku soo dhawaad magaalada Manchester anagoo nigu soo dhaweynay magaca sportiga dhamaan waxaad halka u soo marteen waqtiina u soo lumiseen waa sporti wax qabadna iyadoo nigu jiro saa ugu qabateen dhalinyarada amboolis ciyaaraha Soomaaliya magaalada Manchester waxa uga barateen waa magaalo sporti waxaana ka dhisan hadda 12 kooxood anoo isku dayay inaan ku hadlo magacooda 12 kooxood ee ka dhisan magaalada Manchester 12 kooxood waxa fikradeeda iska lahaa oo ka dambeeyay oo u mahad celinayna guddiga marjaca ee Manchester oo gudoomiye u yahay Shariif Seno sidoo Shariif Seno carab ku dhiftay 12 kooxood ee magaalada Manchester ka dhisan
waxay ku midoobeen isboorti bay ku midoobeen wax kaloo ku jira male isboortiga ay ku midoobeen waxaa ka mid ah qaybaha badan oo isboortiga wada leeyahay iyo kor u qaadka isboortiga marka caawana waxaan u fadhinaa oo halkan aan ka arkay waxay ka dhigan tahay in 10 qof ilaa 14 qof London iyo magaalooyin kale Liverpool, Bolton iyo Birmingham kala yimaadeen iyagoo maaragtay fikradooda ay tahay inay nagala midoobaan isboortiga annaka aan wadno wada shaqaynayna dhex marto marka guddiga dhammaantii waxa la war marka hore soo dhawaada marka labaadna waxaan nii rajaynayaa wada shaqayn fiican marka kale anoo mid hadalka oranaya ciyaar Wides Park oo gudoomiye ka ahay waa koox maaragtay marka hadda 10 sano jirta kooxdaasi marka fikradeeduna waxay tahay aimiskeygu wuxuu yahay in carruurta soo saaraan anoo ka soo bilaabana carruurta 6 jir ilaa ay soo gaarayaan da'da 18 jir marka taasna waxay maaragtay faa'iido badan siinaysaa in isboortiga Soomaaliya horumaro marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh u mahadsan yahay annagoo barnaamijkan ku sii guda jirno wali waxaan haatan u gudbeynaa iyada oo marti qaali ay nala joogto gudoomiyaha ururka horumarinta isboortiga oo aad wada taqaanaan Axmed Nuur Saayig Ruushka waxaan leenahay adna ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka bacdi horta mahadnaq waxaan u mahadcelinayaa maaragtay xafladan aad u qurux badan dadka walaalaha ee lagu casuumay ayadoo markii ka horeysay si kama ama si kadisa ay noogu yimaadeen magaalada London oo annagoo kooban aanu yani maaragtay ku soo dhaweynay ballanqaadna aan u suubinay inaan maxaan ilaahay idinkiis mid aan imaano Manchester ay nagu casuumeen odayaasha marjaca fariin ay nooga keeneen daraadeed inaan u nimid horta aniga anoo ku hadlaya magaca ururka mideynta qurba joogta oo 3 sano socday isla markaana maanta ururkii uu soo bedelay ururka horumarinta isboortiska ee Soomaaliyeed annagoo yani tala ahaan ama ra'yi ahaan wixii howlo aan qabanay intaba hadda wax la taaban karo ay yihiin oo aan u maray dhul badan sida Afrika iyo Asia iyo Europa intaba waxa kaliya aan gaarishanta continent waxa ka jirta Australia meesha la dhahayo ayada iyo New Zealand waxaan rajaynaynaa ayadana sidoo kale tamidaan maxaan ilaahay si gaarsiinay ilaahay idinkiis inay noqoto marka caawa waxa guul noqotay markii Great Manchester oo ah aasaasyaalka nabadda ama odayaasha guddiga marjaca ah ay howl badan meesha ka qabteen annagana magac kale ku culus inaanu meesha ku hayno la dhahayo ururka mideynta oo aan raadinayno mar walba qurba joogta sidii aan u mideyn lahayn wixii dadaal ahaana aan ka gaarnay maantana midaan u taloownay ay noqotay ururka horumarinta isboortiska taasoo yani juhdi badan iyo culays aad iyo aad u ballaaran loo maray oo maantana yani guul ay tahay aanu rajaynayno sidii wadanka aan wax aan u tari lahayn ayadoo hawsha halkan lagu hayo xataa hawl sahlan ayna ahayn oo mar walba dhalinyaro la isugu aruurinayay oo aan rajaynayno kuwa anfaca qaranka Soomaaliyeed inay noqdaan taasna tusaale waxa uu noqon karta maanta qurba joogta heerka ay gaartay ayaa dhaweyto gabdhihii isboortiska ciyaarihii ay uga qayb galeen gadar guulihii ay ka keeneen waa la garan karaa maantana dhalinyaradii basketka maanta mowqifka iyo heerka ay gaareen ayadana waa mid qurba joogta ee xooggeeda ay leedahay maaragtay energy ay saarto taageeradaas iyo hawshaas ayada oo faraha badanna wax guusheeda ay keeneen waaye guddiga olombikada Soomaaliyeed ayadoo maantana hadda doorasho ay dhacday oo aanu rajaynayna ilaahay hadduu yiraaho mid ka ballaaran inay timaado shalay waxa ka dhacday magaalada Muqdisho oo arkaysan idaacadaha waa ka daawateen yani gudoomiyihii gobolka iyo xogeeyihii iyo xiriirka olombikada guud ahaanba in ay bilaabeen in la ordo yani dhowr kilomitir la ordayay taasna ay ku soo bixeen dhalinyaro qaarkood rajaynayo yani ama sheeganayo inay guul ay ka keenaan ilaahay hadduu yiraaho 4 sano soo socoto ciyaaraha ka dhici doono Rio de Janeiro marka aniga hadda tacab ahaan maadaama gudoomiye ama waxaa jira rag juhdiga ila maray oo fara badan oo maanta hadda meesha waan tirnaya haddaan dhaho yani aan halkan ku koobi karin ayadoo ururkina yani waagi hore ma maanta uu sii balaartay ay xubno fircoon oo aad u tira badan maanta mid ay ku soo kordheen ay tahay oo aan rajaynayno awalba 3 sano maadaama aan dutinayna haddana guddi aad u kordhay u noqday waxaan rajaynaynaa yani in hawsheeni mid ay kasii ballaarato oo guul laga keenay inay noqotaa taas
oo noqon doonta ilaahay idinkiis mid aan wadanka wax ku anficin doono wadanka wax aan ugu qaban doono midda kale reer Manchester aad iyo aad aan idinku mahadnaqaynaa casuumadan quruxda badan oo aad nagu casuumteen halkani waxaana leeyahay waa idinka qaabilay waxaana rajaynaynaa hawsha idinkana meeshaad ka wadaan si wada jira midaan u wada wada ilaahay idinkiis inay noqotaa sanad ka hor maraan meeshaan aan imidna sidoo kaleeto waxaan reer Manchester ku wada hadal waxaan idhi annaga ururkaas annahay waxaan rajaynayaa inaad hawshii aad nala wadaan hawshii maanta wada wadkeedina waatana maanta meeshan hadda aan ugu walgalnay waxaan leenahay guul iyo barwaaqo akhyaartana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka SSUK oo ahaan jiray ururkii hore ee Serie A waxaan leenahay Mr. Cabdiraxiin ku soo dhawow waxaa mahad weyn loo ah inaan kasoo qayb galnay xaflad sportis aan uga casuumeen guddiga marna walaalaha Soomaaliya waxgaradka isugu jiraan macallimiin oo aad u jeclaaday wada maamul ayaa yar wax loo qabanay maanta markaan arkay ciyaalkii yaray oo wadanka markii Manchester ay soo badiyeen 6-1 aniga markaan soo galnay magaaladan macallinka ugu horreeyay suuraysan wuxuu ahaa Maxamed Faarax oo ah macallinkoodii ciyaalkii yaray ee kusoo badiyay 6-1 xaddidan ay istaagtay kaas ciyaalkii maanta Soomaaliya iyo macallin Soomaaliya iyo koox Soomaaliya oo ka badiyay koox kaloo cadaan ah oo wadanka u dhashay waa wax qof damiir leh maaragtay oo ka damqanayo walaal maadaama anaga ahayn sportska hore Soomaaliya footballka soo ciyaaray ururka anaga hogaaminaya waxaa ururka la yidhaahdo SSUK waa Somali Sports Association UK gudoomiyaha ka ahay kulli waxay kaga hayaan salaam aan kaga wadaa insha Allah نقول السلام عليكم إلى الماجستير يا أولياشي أنت صوتي الكلام وصوتي لين كاستضد برس حتى رئيس السعودية إن وحنا ما حد أوجدين يا كنتي مرجع وأولياشي هو حكرت كهاي اسكو مع تحلوجي إني كإنسان كوحة ودن قبل كان كل تونك واحد يرمى وجي يسوق جلستين إلا شني توصل عملينا ده أدودين يسوق ترى يحضر فهو وين واحد وقت يقول غالي وقوري وواحد ولا سيسكر معه مركب وحن فينا إن ذلك هالكسي وذا إنك عاجزين كاسمان تأذي رمود المركب نقطة كي كسيرة وقدينا كي كسيرة وقدينا بدي أرضي يرفع عن عثمان فهذا صباح مسكح عثمان خطوة عليه مسكح سبورت سوتشروي مركب سبورت كنا كود دالان أنا جنا حكينا كسي ودنا ميتي كان إن شاء الله إنه هكذا كي يقول كانوا ورك وحنا نصعده وسبورت أنا كدالي أديتها أفريقيا أديتها إيشيا أديتها يوروب أديتها كندا سيد البوشة يحملوا كسوق الجري إن ولين أنا كدالي هاد أستراليا بس أقولهم وحتى لو كنت رأسي أنا وما تحكي لفديو بدوني سومالي ويك أسجنا عبد القادر سجلنا كان كوحس الأوبان لبعض سنة تحسن وجود البيسين المعمول كأها وبلي إيه لندن وقبلي كوب في الوهيم كأها وضدك الأوسط الكلي وحكى له أنا كان فريق دايركتور كأها وركن SSUK عبد الرشيد محمد محمود وسجل هبيني ما أنا كده الإسبوعس كاتيتا كندا ستودنت عبد الرشيد جلاتو سجلنا كوحس كان لو براين وعافى إيو حسن حسين ومعلم كوجور رئيس سومالي كسوقاتي مهارتي وضع يوروبا شهادة وليبل 2 أو ليبل 3 ما شاء الله. أنا كنت معنا وأبغنا وقصبنا إن شاء الله وحتى لو نلصق على تويدي هره بو كمية هاي لاعب كهره وقبل كسيدو وقبل حقارة كأسجل مو قلها إلا حصل واجب كأسجل marka waxa isku dayayna in ay idinkeena dad roomooda la oo ku dayin kartaan ciyaar kaliya roomooda u noqon kara anaga waxa naga dheer wax xun oo fawxan aqabiil uu naga yahay kaas maskax caafimaad qabta maskax sports qabta meel alla meeshii sports uu qabanay waxa balan ugu hayna ka qayb galno wixii aan ka geysan karna advice wixii tala iyo wixii wanaag aan geysan karna ka geysan insha Allah inta nolosheena ka dhigna duuleeyahay
marka mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaa mahad gaar u celinaya guddigii marjaca iyo dadkii ismaamulay oo isku xil saaray inay nagu casumaan magaaladan sharafta badan ee Great Manchester ayagana inayna ka daalin anagana kama daalin insha Allah xiriirkeenu halkaan ku ekaan xiriirkeenu noo sii socda duulada waa maasantii insha Allah assalaamu calaykum cabdiraxiin aad u maasan yahay annagu weli kusii horjirno hawshan isboortiga ahayd sida uu ka dhawaajiyey magaalada Manchester waa magaaladii xasuusatay in ay sameyso ilmo yar oo matala qaranka Soomaaliya lana dhashay kalaab jira ee Manchester City leeyahay ilmo ay meel ku hayaan intaasoo san isla dheelay waa arin aad muhiim u ah in la xuso ku maasan yahay walaalkeen annagoo barnaamijkan weli aan ka bixin waxaan ku soo dhaweynayaa aabahii isboortiga Xuseen Deeriya oo in badan aad ku aragteen goobaha isboortiga mar walbana aan ka baaqan waxaan leenahay ku soo dhawo xafladan aad iyo aad u qiimo badan oo reer Manchester ay ugu soo dhaweeyeen caawana maxaan ka markaati furayaa ururkii hore oo mideynta oo hadda isu bedelay horumarinta in howl badan uu soo qabtay ciyaartooy meel kasta uu geeyay Itaaliya oo Yurub meelo kale Carabta taas maxaan ku sii darayaa qoladan Manchester qolo walba waxa ay tahay in la sheego ayuu waajibka yahay annaga reer Manchester maxaan u naqaanaa hooyada sportiska oo UK taas ayuu naqaanaa macnaheedu uu yahay dad u sixil qaamay in caruur yar yar oo gacanta ay ku qabtaan ilaa qaarkoodna maanta Serie A oo Serie A midkan Ingiriiska oo Champions League ay ka mid yihiin qaarkood Yurub ay ka ciyaarayaan taasna maxaa lagu gaaray dadaalka qoladan oo Manchester ama marjacooda ha ahaado ama qolada sportiska u maamusho ha ahaato waa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa Axmedna maxaan kula dardaarmaynaa iyo ururkiisa oo horumarinta in hawsha meesha oo hadda ka wado ka sii zaa'idiyo haddii anaga aan nahay odayaasha London kolba caawa aniga kaliya ka joogo salaan gaar ah ayaan idinka wadnaa ama ha ahaado ururka ama ha ahaado reer Manchester waana ognahay labadii laba hadii la isku daro oo aan midoodaan in ma aragtay UK kaliya ma ahe Yurub oo dhan iyo wixii kala sii raaco ilaa Soomaaliya meel kasto in guul ka gaari kartaan hor u qabada u horseedi kartaan marka maxaan idinka codsanaynaa anagoo odayaashii oo sportiska London ah in meeshaas hawsha ka sii wadaan aad iyo aad waa ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Mr. Ahmed Abdullah Tigana ku soo dhawaada habeen wanaagsan dhamaantiin waxaan ku faraxsanahay caawa inaan barnaamijkan idinkala soo qayb galo waxaan idinka mahad celinayaa haddaad tihiin reer Manchester soo dhaweyntiina qiimaha badan iyo sidaad noo soo dhaweyseen waxaan kaloo u mahad celinayaa odayada marjaca oo ah tusaale fiican oo u baahan in lagu daydo meelaha kale ee Soomaalidu ku nooshaayeen in sidaas oo kale laga sameeyo waxaan ka nimi London saala socotaan gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo xogeyntii ururka dhamaantay waa wada soconaa waxaana ahay dadka hadda ku soo biiray horena xubno uga ahaan jiray ururka horumarinta sportiga marka waxa loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii loo horumarin lahaa sportiga oo looga midoobi lahaa waxyaabo badan waayo waxa dhac waxyaabo badan oo dadku aan inta badan aqoon u lahayn haddana ay isku dayaan inay ka qayb qaataan waxa dhacday sheeko yar oo sometimes inaynu bal isxasuusino dhacdooyinka yaabka badan leh oo sportiga dhexdiisa ka dhaca laba nin baa maalin maalmaha kamida waxay galeen ciyaar ka socotay garoomadeeni lagu ciyaari jiray ciyaaraha ciyaartii waxay ahayd ciyaar xiiso badan muddo la ciyaaray ciyaartii markay dhamaatay ayaa labadii nin ee saaxiibka ah ee wada socday ciyaarta daawanayay ayaa midba kii kale wuxuu weydiiyay wariyo ciyaartii aynu maanta daawanaynay ciyaar fiican bay ahayd aad baan ugu xiisay ninkaasina inta ciyaar socotay uu qaylinayay uu sacabinayay wuxuu laakiin ciyaartii waxaan la yaabanahay ciyaartii horta waxay ku dhamaatay bareejo ku dhamaatay barbarac laakiin waxa jiray nin ciyaarta ku dhex jiray oo dhar madow xidhnaa oo aan marna kubadda la siin ninka isagana orodkii baa ka dhamaaday buu yiri oo marba garoon buu tagay marba gees buu tagay muxuu ahaa ninkaasi
marka wuxuu ugu sheegay maadaama aynu nahay ummad dhaqanka oo suugaanta ku fiican hab suugaaneed buu ugu sheegay marka sheekadii baan rabaa bal caawa inaan idin sheego sidii wax u dhaceen wuxuu yiri ciyaartan galabta joognay garoonkan daawanaynay nin baa ku dhex jiray gudaha dharku gashanaa walaalow tilmaan gaar u lahaa dhar madow wuxuu arbitarihi moogtahay buucliyo orod baana dilay anigu garan waayay ruuxe gruubkeebu ahaa goolkeebu weeraraayay kubadi gacantiis ma galine maxaa loo gees maraayay ninkan kubadba lama siine maxaa dhacay buu yiri ninkii saaxiibkiisa ahaa xogaa magaalada uga soo horeeyay baa isku day inuu sharxo wuxuu yiri sheekadii buu rabaa inuu sheego maxaa loo gees maraayay wuxuu yiri ninka u jeedid oo maanta dhan la dhaafay marba gees tagayay ninkaas baan ku sheegaya wuxuu ahaa wuxuu yiri garsoori buu ahaa Bashiir Goob buu ahaa buu yiri ninkaas garra calan wada ah Xasan Garre waa la wada yaqaanaa garra calan wada ah ciyaartii la isku guurayna gaadiidkii waa waxool buu yiri labada ciyaarood marka waxa loo baahan in wixii la barto la sabood gareeyo aynu ka midoono waxyaabaha xunxun haddaan wax yar ka taabto ururkan horumarinta isboortiga kumaanu midoobin qabiil reer kumaanaan midoobin gruubo isu tagay oo si gaar ah u midoobay miihin waxaanu ku midoonay Soomaalinimo waxaanu rabnaa marka inaanu sabood idinka helo si aanu uga gudubno meeshaanu joogno aanu idinka mid noqono idinkuna aad naga mid noqotaan waa mahadsantihiin martiqaadkiina iyo soo dhaweyntiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jeclaan lahaa inaan halkan uga yeero Faadumo Shariif oo ah hooyadii decoration-ka soo sameysay qurxintii magaalada inta badan xafladaha dhaca qofka gacanta weyn ka geysto oo aan jecelnahay barnaamijka inay qayb weyn ka qaadato waxaan leenahay Faadumo ku soo dhawow caawa waxaan halkan isugu nimid xagga isboortiga anigoo oo ku hadlayo magaca hooyooyinka ee magaalada Manchester hadii ilaahay ku roon yahay marka barnaamijka run ahaantii oo xagga isboortiga Manchester caan ay ku yihiin sida hore loo sheegay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay run ahaantii waana meesha kaliya oo laga soo barbaarin karo caruurta ama ardayda ama meel walba oo isugu timaado ama iskugu xirto run ahaantii xagga isku xirka oo isboortiga waxyaabo badan ay macnaha ay faa'iido keentaa faa'iidooyinka ay keenayso wax yar ma aha wax badan oo la soo koobi karin waaye xagga nabadoo kale maanta wadankeena Soomaaliya sida aad ula socotaanba waxa saameeyay dagaalo badan waxyaabo badan ayaa ka dhacay taas maanta waxa macnaha kor u qaadi karo ama aan socodsiin karo waxay tahay oo arday dad waxa jiro oo dagaalka markuu dhacay ayagoo 5 sano jiro uu dagaalka dhacay intaas dagaalka markuu dhacay dagaalkii wadanka sokeeyaha markuu dhacay 22 sano ka soo wareegatay run ahaantii iyo in ka badan cunugii maanta wadanka ku dhashay asagoo dagaal socdo oo weynaaday oo 27 jir ah oo aan waxba soo barin ama waxba aan soo akhrin ama aan waxba soo arkin oo dagaalka uu ku dhashay ku weynaaday maanta markii uu arko meel sport lagu ciyaarayo ama muxuu ahaa sportiga laga hadlaayo ama sportiga lagu macnaha lagu soo kiciyo lagu soo barbaariyo wuxuu noqon karaa qof wadanka wax weyn u tari karo ruuxantii because qof maanta 27 sano jiro xagga waxbarashada oo laga soo saacidi karo waxay noqonaysaa waa dhinaca sportiga meel kale ma umaleynaayo oo laga soo saacidi karo marka laga ma sheekeyn karo magaalada Manchester waa magaalo caan ah ee ku caan ah xagga sportiga ee aadna dad ugu furfurcoon ay ku jiraan caruur badan ayaa jirto oo laga soo barbaariyay wadanka Manchester aan la soo koobi karin waxaan halkan ka wacayaa walaalkan Xuseen Xuska oo ah halyeyga sportiga naadigii Horseed oona ah dadka gacanta ka geysta mar walbaba xarunta sportiga ee magaalada Manchester runaantii Xuseen Xuska Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh martida sharafta leh nooga timid gobolada way salaamintihiin ku soo dhawaada Manchester la socotaan waxa ka soo qaybgalay barnaamijkan marti sharaf aad u fara badan waxa ugu badan waxaan dhihi karaa ciyaaryahanadii bariisamaadkii wadanka Soomaaliya ka ciyaari jiray oo ugu horeeyay gudoomiyahoodii Mr. Cabdiraxiin Ali Diiriye iminka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka laba ciyaaryahan
oo u cayaaray naadiga muqdisho cayaaryahanka hore magaciisa waxaa la yidhahdaa Mr. Cabdirashiid Maxamuud Cali waa goolhayihii kooxaha Banaadir Waxool Muqdisho iyo qaranka isla markaana ah shakhsiyadii ugu horeeyay ee dhalinyaro da'yar u kaxeeya wadanka Canada waxaa kaloo nala jooga Mr. Cabdirashiid Farax oo loo yaqaano Mbobe oo ka yimid magaalada London ugu dambeyntii waxaan u yeerayaa cayaaryahan oo Minishibia waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ururka weyn ee Somali Week Mr. Abdulqaadir Daus Bismillaahi Raxmaani Raxiim anigoo ah Cabdirashiid Maxamuud Cali oo ku magac dheer Jalaato waxaan u mahad celinayaa odayaasha marjaca iyo maamulka Great Manchester dadaalka ay muujiyeen iyo soo dhaweynta ay noo fidiyeen barnaamijkan lagu horumarinayo isboortiga Manchester laguna taageerayo isboortiga guddiga Olimbikada isboortiga loo doortay Soomaaliya isla markaana lagu taageerayo dhalinyaradii bahayarta ahayd باسكتك قرنك بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعلى عبد الرشيد فارع عبدي إن بابنكم مقع ليرهاي وحنا كان مهدو علينا قدقة مرجعة جريت مانشستر أو سي شرف للنصر دوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ماشان ما مدنين بينان كهذا النقضياشي سبورتس كإنتاس وصوها الجماعة جوجو ضدنا قالها جوجو لكن هل مدام قدر السنة ما دام نلقوا عزومة ماشان مركبوه رئيس وحا أمد ألينا قضياشي هل كان نلقوا عزومة جريت مانشستر مركب سبورتس كبيشة ومركب لبعض إيمانين أنك إيمانين from London to here و almost 6 ساعات أو driving hour ما سهلا وحا إيمانين وسبورتس marka waxa loo baahanyaa midnimada sportska in maaragtay oo laga shaqeeyo maadaama aan ogsoonahay in maaragtay tafaraaruq meel kasta ka jiro odayaasha Manchester marjaca waa maasan yihiin London odayaasha ugu weynaya joogo marka ayagana inay sidooda camal sameeyaan ay dadka isku keenaan wanaag laga tariyo maadaama waqtigii waa socdaa time is ticking cunugii maanta dhashay 90 waxa uu jiraa 22 sano 22 sano haddii aanu iskuul aadin waxba baran kii oo dhalay 15 sano ka bacdi 40 jir waxa soo baxay 20 jir wato oo maartay waxba maartay meeshka marka waqtiga waa nagu adag yahay marka time dawlad waa helna alxamdulillah marka waxa loo baahan yahay inaan walaaloono Manchester iyo Holland iyo Ingiriis iyo waxaas wadad Soomaaliya islana qurbaha soo aada wadankeena sidaan wax ugu qabsaleen inaan ka wada shaqeysano aan kala dambeyntii meesha ka baxday qofku sportsku ugu soo horeeyaa ku ixtiraamo wax dhibaato leh ma fahmaysaa marka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh sida aad la socotaan magaalada waa magaalo sports horumar badan ka soo bisay sportska iyadoo ay joogan Cabdinaasir Xasan oo ahaa fisioogii markaas la socday Olimbikada Soomaaliyeed waagii imaanayeen halkan waxaan leenahay Cabdinaasir ku soo dhawow waxaan u wacaynaa oo kale Cabdi Xasan Muuse oo ah madaxa open age-ka iyo waxaan u yeeraynaa macalinka physicalka ka dhisa dhalinyarada sportska macallin Yaasiin Cabdullaahi kudkuda waxaan leenahay ku soo dhawaada halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانشستر ku soo dhawaada dadka ka imaada London بسم الله الرحمن الرحيم دمان وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله مقعد دنيا مقالة مانشستر وحاد ugu faraxsanahay anigoo matalay magaalada dhalinyarada in la siiyo 2 daqiiqo ku hadlo waxaan aad ugu soo dhaweynayaa magaalada Manchester macallimiintii ciyaartooydii dhalinyarada cuslaatay oo ka yimaada magaalada Manchester oo ka yimaada magaalada London waxaan leeyahay ku soo dhawaada Manchester waxa aad ugu faraxsanahay haddana dhalinyarada magaalada Manchester xoolaha cusub oo ka socda magaalada Soomaaliya haddii ahaato London haddii ahaato Canada dhalinyarada iyo sportiga ay u matalayay kubadda koleyga guusha ay gaareen taasina waxa aad dhalinyaradeen noogu dhalisay iyo rajo fiican noo gelisay iyo kartiba ama geesinimo intaba in aanagana bixi karno oo ka qayb gali karno
meel allah meesha sports ku jiro aan matali karno wadankeena hooyo waxaa haddana muuqata Soomaaliya inay Soomaaliya soo noqon rabto oo adduunkana alla mid noqon بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa intii taqaanaynta aan aqoonbo Yaasiin Cabdullaahi Kudkude waxaan kamid ahaa dhalinyaradii hore ee Soomaaliya oo ma aragtay dadkii sportiga kobaha u qaadi jiray sida sayga ruushka kale waagu jeey u dheelay digay aan halkan ka xusaaya oo ahaa sporti hore oo aanan hortooda caaw ku hadli karin waaba ka xishoonayaa because dad culus oo ma aan u arki jiray inay yihiin dad la janno ah ayaa caaw gadaasheeda fadhiyay iyo rag kale oo la mid ah marka magaalada Manchester waxay leedahay sports badan qaybo badan ay leedahay waxay leedahay mataqaanaa football ay leedahay basket ay leedahay waxay leedahay dabaal ay leedahay oo aan xataa dabaasha barno nin la yiraahdo Maxamed Ibrahim oo haduu biyaha ku dhaco aan ka soo bixin waxaan caaw aad ugu faraxsanahay inaan ma aragtay dhalinyar dadka ka soo qayb galay xafladan balaaran waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka caawa ka soo qayb galay xafladan iyo martida nooga timid magaalooyinka kale aad ay u mahadsan yihiin waxaan leenahay soo dhawaada hore u sheegteen inay Manchester tahay meesha ma aragtay hoyga sportiga Soomaalidana waxay tiraahdaa jirfiyo ayaa waxa ku jira maskax fiyo sidiisaba sportiga qabiil ma laha sportiga waa dad isu tagay waa dad ma aragtay horumarka caafimaadkooda ku jiro aniga waxaan ka shaqeeyaa meel ma aragtay gym ah oo aan ma aragtay ka caawiyo ciyaalkan hadda Soomaalida idin sheegan sida gudoomiyaha u yahay Xasan Jabuuti oo kale gudud baar ama Faarax Macalin Faarax ama Maxamuud ama macalin ma aragtay Amadi iyo dad la mid ah ayaan ma aragtay marmar ka caawiya dhinaca fitnesska sportiga kaliya ma aha in footballka la riixo kaliya football waa soo ciyaarnay Soomaalidu waxay tiraahdaa ciyaartoy duqow wuxuu isku bedelaa fanaan ani footballer ahaan jiray footballer waa ka baxay hadda waqtigeeda waa dhaafay hadda waxaan isku bedelnay dhinaca jiriska ama biraqaadida marka waxaan leenahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayay u mahadsan yihiin waxaan filayaa saraakiishii wadanka haddii aad dabaal barteen oo ku jiro koloneelka maxamed aad ayaan ugu faraxsanahay dawadayaal intii uu socday barnaamijkan waxaan telefoon ka helnay wadanka Masar iyo magaalada Gaalkacyo oo ay nooga soo direen qof reer Manchester ah oo runtii halkan ka maqan caawa waa Mr. Fuad Usman wuxuu idin yiri aad baan ugu faraxsanahay waan ka xumahay inaan ka maqanahay waxa kale oo la soo hadlay Axmed Sheegow Bishaara ciyaaryahankii horseed iyo qaranka isagoo salaan dhamaantiin isoo gudbiyay wuuna ku faraxsan yahay halka ka sameeynaysan aad ayay mahadsantihiin iminka waxaan ku soo dhaweynayaa tifoosaha Soomaali ugu weyn ee dhinaca footballka isla markaana ah xogayaha ururka horumarinta sportiga Mr. Maxamed Ciise Cali Digeeye iyo waxaan kaloo ku soo dhaweynayaa legend badan ayaa laga hadlay laakiin legend football ugu weyn ee Soomaali caawna la fadhiya ciyaaryahankii badda iyo qaranka Mr. Xasan Xuseen caawa sharaf weyn bay noo tahay inaan ka qayb galnaa halkan waana mid ku la dhihi karo in lagu daydaa odayaasha maanta ama caawa halkan nagu soo dhaweeyey ee Manchester waa odayaal 24 saac ka shaqeynayo sida u horumarin lahaayeen sportiga ilaahayna waxaan ka rajaynayaa odayaasheena London Liverpool Leicester iyo meelaha qaarkood inay sidoo kale noqdaan ay u soo abaabulaan isku kalsoonaadaan iskuna xiriiriyaan ciyaaryahanada ama gudiyada ciyaaraha ee ka tirsan wadamadaas midda labaad caawa horta farxad weyn waxay ii tahay caawa waxa loo hambali loo diray basketkii ka dhacay ciyaarihii basketka ka dhacay magaalada Dar es Salaam dalka Tanzania haddaan dib u xasuusano halkan waxa xaflad loogu dhigay gabdhihii ka qayb galay ciyaarihii lagu qabtay ee qaybta libax ka qaatay wadanka Qatar ee Doha marka waxa maanta waa inaad ku faantaan raggiinan Manchester joogo ama gudiyada inaad ku faantaan inaad tiin maahan aabihii kaliya maahan hooyadii maanta waxaa tiin dadka aan horkacayno dadka waxaa tiin aan mar walba dabagalayno barkee waxaan u muuqataa inaad tiin dadka rabo in lagu daysto waana mahadsantihiin aad iyo aad bismillaahi raxmaani raxiim waxaa sharaf weyn yahay inaan maanta aan imaado Manchester waa markii ugu horeysa aan imaado ma malaynin maaragtay inay Manchester saan ka jirto waxaan arkay Manchester inay yihiin wax lagu daysan karo dad oo isku duuban inay yihiin
teeda kale maanta fursadda weyn aan haysano waxaa waaye dad waxaa noo hayo isboortiga Soomaaliya maamuli kara amba aqoon fiican u leh sidii gudiyaalka maaragtay ka tirsan Soomaaliya kooxda kubadda cagta federasiyonaha kubadda cagta Olympiga waa dad aan ku daysan karno madaxweynaha dad aan ku daysan karno marka challenge fiican aan haysana maanta waxaa loo baahan yahay inaan challenge-kaas ka faa'iidaysano oon maaragtay aan ku dadaalno sidaan uga faa'iidaysan lahayn meesha la yidhaaho Manchesterne saan haddaan ogahay inay tahay mar hore ayaanba soo degi lahaa aniga oo Manchester waxaan raadinayay ayay haystaan waxay abuuraan ciyaartooyda anigana waxaan go'aan ku gaaray inaan ciyaartooy sameeyo wixii aan bartay oo dhan marka sidaas daraadeed waa ku maasantiin sidaa noo soo dhaweyseen iyo sida sharafta aad loo tixgeliseen wasala allahu calaa sayidina maxamed cali abanuur iyo duraan axmed shire oo loo yaqaano duraan qararacle waxaan leenahay ku soo dhawaada raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan odayaasha dhalinyarada martida noo timid ciyaaryahanada waxaan kaloo halkan ka salaamayaa bahda isboortiga ee reer Manchester oo aan ka tirsanahay aniga lafteedu macallimiinteenna reer Manchester maadaama halkan looga hadlayo kubadda koleyga iyo isboortiga oo dhan waxaan jeclahay inaan hadirtaan mataqaanaa aan ku soo wareejiyo walaalkay cali abati oo ah isaga laftiisa ninkii u horeeyay Yurub ka wada dhalinyaro isboortis geeyana Canada barakaad كل بيش وقتي ولا ماضي أنا هذا البدر مرنا أنت نجاه رسي أي هدلين أنا جي أنت وحنا نسوي استاجي إن أمها تعليو أنا كنت هاجر قد يقول أولمبيك الصوماليات دور الشدة أي كذا عدي مقالة مقدسة إن أنا كنت هاجر يو تاجر أو سمية وآد أنا أمها تعلني كبد كوليج الصوماليا وميل صار إيك جارين عياري كذا عي ودن كتزاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo reer Manchester waxay la jooga ugaaska afayeenka guddiga marjaca ugaas waxaan filayaa barnaamijkan waqti aad u dheer ayaa laga soo shaqeeyay sida loo keeni lahaa dhammaan bahda isboortiga ee UK waxaan oo sheegtaa yaa ka dambeeyay muxuu yahay waxa ka soo bixi doona barnaamijkan caawa lagu sameeyay magaalada Manchester bismillaahir rahmaanir rahiim ama santaa solo waa aragtaa Manchester inay aabihi isboortiga tahay barnaamijkan caawa waxa loogu talagalay kor u qaadida isboortiga bahweynta London looga timid oo arkaysa caawa kala gedisan sidii sayga ruushka hogaamiyahay SSA Cabdiraxiin iyo marti sharafta kala nooga socoto telefishinka Universal TV oo isna goobjoogka meesha Manchester waa sida aragtay horumarinta isboortiga dadka magaaladan kulli way soo dhaweeyayaan waxay taageer halka ugu soo jeediyaan Olombikada Soomaaliyeed oo hadda doorashada xamal ka dhacday ay leeyihiin waa taageersan garabkiina aan taageernahay hadii hata xaq dhaqaale loo baahdo diyaar bay leeyihiin waan mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحلا مع الفرح وحنكو هلا أورك سبورتس كمانشستر خاصة ويد بارك سيدا واركتين وحن عاوز وما من حتى هرمرنت سيلا هرمرنكها marka waxa chance in yani la arko macallimiintii dadkii wax qaban jiray sida oo sportiska meel kasta ka shaqeeyo si loo helo maskaxiyan dadka la isku darsado ee ka dhashaan sidii loo horumarin lahaa ilmaha ubadka yaryar khaasatan dadka da'da jira from 5 sano ilaa waaweyn si loo helo dad yani anfacayo mustaqbalka insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا محمد إبراهيم عمر حقيقة جود مرجع وضياشة مانشستر وحان مركو أقول رئيسو مقع جود وضياشة مرجع همبليو يبغادين ديرن وقدريا إن جود أولمبيكا la doortay lagu doortay magaalada Muqdisho caasimadeena marka xiga waxaan iyagana hambalyo bogaadin kal iyo laba ana ku hadlayo isla gudiga marjaca magacooda u diraya ciyaartoydii kubadda koleyga ee gabdhaha ay ku guuleystay wiilasha afan gabdhahan jeclaan mugta wiilasha ku guuleystay ciyaartii Tanzania lagu qabtay ee Afrikaanka ayaan maartay iyana waxaan u jeedinayaa hambalyo waxaan raacsiisanayaa Yaasiin oo badda ka ordi jiray anigoo aabahay uu ahaa Ibrahim Umar Kapo asaasiyaasha ciidanka badda Soomaaliyeed caawa anaa xaal is siiyay
inuu yidhaahdo dabaashaan bari jiri dabaashaan baray ereygaasna waxaa ka dambeeyey cumar lugooye ha la ogaado بسم الله الحمد لله على نعمة الإسلام مرك ugu horeysa madaxda guddiga marjaca Greater Manchester dhalinyarada Greater Manchester odayaasha Greater Manchester dumarka haweenka hooyooyinkeen Greater Manchester waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay yani sida kalgacalka iyo walaaltinimada ee aad noo soo dhaweyseen anoo idinkaga mahad celinayo aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa taasi kan labaad waxaan halkaan ugu hambalyeynayaa dhalinyaradii kubadda kolayga Soomaaliyeed yani ciyaaro aad u wanaagsan ka muujiyay ciyaarihii ka dhacay zone 5 ee East Africa East Central Africa run ahaantii ciyaar aad u fiican ayay muujiyeen ka qurba joog ahaan anoo ku hadlayo magaca ururka mideynta qurba jooga iyo horumarinta isboortiga Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad yani halkaas aad ugu hambalyeynayaa haddii aanu wada shaqeyno qurba joogta iyo Soomaalida gudaha joogto madaxda gudaha joogto madaxda xiriirada guddiga Olympiga Soomaaliyeed kulligood haddii aanu wada shaqeyno in aan guul gaari karno halkaas ayay ka muuqatay insha Allah waxaan sugaynaa in ay xiriirada kale kubadda cagta atleetikada ciyaaraha fudud dabaasha xiriirada kalena ay ku daydaan sida xiriirkii kubadda kolayga ee guusha lama iloowaanka ah gaaray والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم هسيه داود يالكاسي وحوها حاجي محمد غليف أو قدومي كحجينك أوركوين هرمونية سبورتيكا أو لا سعودي سفر كقدوميها يوم مرت شرفتك عليك كالتميت مجالوينك ودنك إنجليزك سامق ليسين وحلقها اللي ويلشي سوماليات كغيب قلي عياره زون 5 كأكد عي ودنك تنزانيا وعذرك وصودكي قبله لبسنا كوريا سميا مركب واحد وجد السورة قداش يلا يدو جدان أو أي صوبر نجيم بعض كوبات كوليجا magaalada Manchester runtii waxa halkan mahad uga direynaa dhammaan macallimiintii ugu horeeyo macallin Umar Abdul Qadir Barajab waxaan kala u direynaa xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Dr. Saeed Farax Ducaale waxaan kala iloobi karin macallimiinta Bashir Fox Ahmed Muuse iyo waxaan iloobi karin Maxamed Xaaji iyo dhammaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga iyo bahda guddiga Olympiga qaranka Soomaaliyeed isla markaana waxay bahda reer Manchester reer London iyo gobolada kale ee waddanka Ingiriiska halkan hambalyo ka leeyihiin gudoomiyaha cusub ee guddiga Olympiga qaranka Soomaaliyeed Mr. Tarabi gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo waxay kala u direen xogayaha Mr. Duran Farax shaqada weyn ee u hayaan ummadda Soomaaliyeed reer Manchester reer London dhammaan reer Europe waxay idin leeyihiin hambalyo iyo wada shaqeyn wacan aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad ayay u mahadsantihiin kasoo qaybgalka ka soo qayb gashan xafladan sharafta leh lagu taageerayo Olympicada Soomaaliyeed dhawaan doorashadooda ka dhacday magaalada Muqdisho iyo kubadda kolayga wiilasha kubadda kolayga oo ka qayb galay ciyaarihii bariga bartamaha Afrika annagoo barnaamijkan ku guda jirno waxaan jeclaan lahaa halkan inaan uga yeero gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladan mudane Maxamuud Axmed Geesay aad wada taqaanaan waxaan leeyahay ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وسلامتيهين dadka martida oo noo yimid iyo jaalida reer Manchester dhammaanteed jaalida gareed Manchester sorry iyo marti sharafka nooga timid magaalada London marka ugu horeyso soo dhaweyntii iyo hadalkii iyo kulli maaragtay kulli waa la wada hadlay alxamdulillah anaga maanta aad aan faraxsanahay maadaama uu nala joogaan guddigii maaragtay mideynta qurba joogta guddiga seeraada isboortiga kale dadkii tabinaya maaragtay ciyaarihii maaragtay Universal TV qaybta isboortiga biriq iyo Zola iyo saaxiibkiis Somali Channel cameraman Afi Yaasir kulli dhammaan waa mahadsantihiin idinkana waa idin salaameynaa haddaan nahay reer Manchester maaragtay caawa annaga ma soo koobi karna farxaddeena maxaa jira maadaama annaga aan la kulannay dadkii qurba joogta magaalada London howlaha fara badan ka hayay maadaama caawa ay meeshaan wada joogaan maaragtay aad ayaan u faraxsanahay marka anaga reer Manchester waa laga hadlay wixii la qabtay aniga khaasatan maaragtay waxaan ahay qaybta maaragtay basketballka qaybta sportiga kulli maaragtay insha Allah waxaan rajaynaynaa heerka maanta qarankeena oo maray waa ogtiin basketballka insha Allah anagana inaan rajo fiican yeelan doono hadii Ilaahay ila mustaqbalka waa aragteen dhalinyaradii basketka waa aragteen macallimiintii halkaan maaragtay Umar Abdul Qadir Barajab Saeed Farax Ahmed Muuse Bashir Fox dhammaan waa u mahad celinaynaa
waxaan u mahadcelinaynaa kale cabdi dheere iyo dhamme oo ma aragtay dadka ka soo bushgareeyay maaragtay Mareykanka iyo Canada dhalinyaradan ah marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa maxaa jira maanta sharafta ay soo celiyeen dhalinyaradaas maaragtay sharaf oo maaragtay lama ilaabana waaye haddii ilaahay anaga reer Manchester haddaan ahna weli xaflad ayaan ugu talagalnay u sameynay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka haddii maaragtay ay yimaadeen magaalada London inaan xaflada weyn ka sameeyo ka weyn u sameyn doono haddii ilaahay kulli caawid digayaa sheegay in maaragtay halkan gabdhihii loogu qabtay xaflad hadda ka hor caawana maaragtay waa xaflad labaad oo ugu talagalnay soo dhaweynta wafdigan London nooga yimid iyo hambaliyada ciyaartooyda maaragtay qaranka basketballka waxaan kaloo rabnaa inaan u hambaliyeyno Olombikada Soomaaliyeed bishii January magaalada Muqdisho aad ayaan ugu hambaliyeynaynaa runtii qofka maanta markuu mas'uul noqdo waxa la rabaa in la taageero marka anaga qurba joog hadaan nahay waxa nala gudboon inaan wax taageero inaan dhibaato geysana ma aha maxaa yeelay haddii adiga aad hadal xun wax aad ku dhahdo waxay keenaysaa dhibaato waxay keenaysaa ninkii inuu dismoral noqdo waxay keenaysaa qofkii mas'uuliyadda in laga cararo marka waxaan leenahay anaga reer Manchester haddaan nahay waxaan ku talinaynaa in cid kasta oo mas'uul laga dhigo oo meel walba maanta Soomaaliya 22 sanadood ayay burbur ku jirtay hadda ayaad u malaysaa inay dib u soo kacayso cid walba mas'uul laga dhigo cid walba wax kasta oo bulshada Soomaaliyeed lagu horumarinayo loo dhiibo in la taageero waay maxaan ku taageeraynaa wixii qaldan inaan u sheegno ma aha inaan idaacad ka hadalno ma aha inaan si xun ula hadalno ma aha inaan website wax ku qorno waa inaan u sheegno oo dhan war hebel meeshaas iyo meeshaas iska sax meeshaas iska toosi laakiin haddaan aflagaada iyo dhibaato u geysano qofku wuxuu noqonaa dismoral waa qof maaragtay dhibaato aragtay ku shaqaynayaan qaarkood way ku dhinteen qaarkood hadday u taagan yihiin baahi ay ku shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan qarax waxay ku shaqeeyaan xabad waxay ku shaqeeyaan dhibaato haddana anaga qurba joog haddaan guryahan ka soo kacnaa subax markaan soo kacno waxaan ku hadalnaa waxaan fiicnayn marka waxa fiican in wax wanaagsan lagu hadlo kelmadda wanaagsan maaragtay ninka markuu yiraaho waxay kamid tahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa jira dhahay sadaqada ay kamid tahay marka in kelmadda wanaagsan la yiraaho ayuu ku fiican tahay haddana meeshaan waxa maaragtay hambalyo idin soo diray iyo salaan guud maaragtay mudane cali umar sheegow oo wada taqaanaan sida badan bahweynta isboortiga oo ahaa ninka ugu horeeyay ee Olombikada saxiixay Soomaaliya inay ka mid noqoto guddiga Olombikada magaalada Luusaan wuxuu ku cudur daartay inuu meesha imaan waayay kulay rag kale oo wiilashiisa kamida iyo saaxiibadiisa meesha wada fadhiya marka isagana waa in salaamayay odaga wax badan uu soo qabtay Olombikada uu soo qabtay meeshan taariikhdiisa kuma soo koobi karno maxaa yeelay nin taariikhdiisa la sheegi kara ma muddo badan ayuu wasiir soo ahay gudoomiyihii gobolka Banaadir isagoo ah 1960kii ayuu haddana wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee saxiixay Olombikada Soomaaliyeed magaalada Lausanne wadanka Switzerland in lagu saxiixay 1960 marka wuxuu leeyahay Olombikadana waa uu hambaliyay wuxuu leeyahay hambalyo dadkaas ha lala shaqeeyo ha la taageero wixii lagu taageeri karo anaga qurba joog haddaan nahay maanta haddii aan dhiibno wax yar $100 oo dhahno ciyaal ha loogu gado kabo faa'iido keenaysa laakiin haddaan hadal xun dirno meel dheer oo ka dhacaya marka dhamaantiin waa mahadsantihiin saako aragtaan waxa safarka soo weheliyay gudoomiyaha ururka SSA UK Serie A Mr. Cabdiraxiin Cali Diiriye oo ay weheliyeen Axmed Nuur Maxamed Xaashi Sayga Ruushka oo ah gudoomiyaha horumarinta isboortiga iyo dhammaan marjaca reer Manchester bahda isboortiga wiilasha gabdhaha ka soo qaybgalay barnaamijkan aad ay u mahadsan yihiin barnaamijkan waxa soo qoray isla madaxa Sporting University Cabdiqaadir Maxamed Faarax Bariq waxaana cameraman-ka ahaa Maxamed Yiriisow editing-ka iyo soo saaraha waa Jibriil Maxamed Jibriil Cabdiqani Maxamuud Baac iyo Rashka anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil waxaan idin leeyahay reer Manchester iyo dhammaan dadka jecel isboortiga Soomaaliya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahara hadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay 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 ayayno sinanine hayno kala sokeeyaan
ayayno